waxaa magaalada Laascaanood markii ugu horeysay ka furmay tartan ciyaareedka kooxaha heerka labaad ee Serbida iyadoona isuduwaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ee gobolka Sool ay u soo magacowday Serfaad Axmed Cali Haybe oo usbuucan soo gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxaa durba laga dareemayaa jawi sports magaalada Laascaanood waxaana maalinimadii shalay ka furmay garoonka kubadda cagta Cabdi Bila Cabdi koobka kooxaha heerka labaad ee ka jira magaalada Laascaanood. koobkan oo ah markii ugu horeysay ee abid loo dhigo da'yarta gobolka ayaa halku dhigiisu ahaa ka hortagga qabyaaladda iyo kala qaybinta dhalinyarada gobolka Sool. waxaana guud ahaanba garoonka kubadda cagta Cabdi Bila Cabdi soo buuxdhaafiyay taageerayaasha kooxaha ku tartami doona koobkaasi waxaana galabta fooda isku daray tartankaasi kooxaha Somali News TV iyo sidoo kale kooxda Telesom. ciyaartaasi ayaa ku soo gabagabowday barbardhac eber isuduwaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ee gobolka Sool Serfaad Axmed Cali oo halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu dhalinyarada ugu bushaareeyay inuu noqon doono koobkani kii ugu dambeeyay ee lagu ciyaaro garoonka ciidda ah. garoonka Cabdi Bila Cabdina wixii tartankan ka dambeeya uu noqon doono garoon caalami ah oo yaala rooga cagaarka ee casriga. koobkii Serie B-da ee dhalinyarada gobolka Sool runtiina dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada. Serie B-duna runtii waxa weeye waa mustaqbalka Serie A-da waana nimanka u baahan in aad loogu tabco. waxaan aad uga mahadnaqayaa hawsha ballaaran isku soo dibariday kabtan dhalo iyo rag badan oo la shaqeynaya. runtii aan ugu hambalyeynaya labada go'aan ee kala ah inuu marka hore koobkan soo qaban qaabadiisa waday marka labaadna uu cadeeyay oo halkan ka cadeeyay inuusan xiriirka kubadda cagta ee Puntland uusan ka tirsanayn. runtii waan ugu hambalyeynayaa waan nin wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ka tirsan. runtiina wasaaradda iyadan hadda cusub ee gobolka loo soo magacaabay waxaan aaminsanahay inuu lafdhabar u noqon doono. waxaad u wada jeedaan garoonkii Cabdi Bila Cabdi inuu yahay maanta didib waa dhagax balse waxa uu yaala kaarbadkan waxaa la dhigayaa bishan markay dhamaato. runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadnaqayaa Marwe Samsam wasiiradda maaliyadda Marwe Samsam runtii oo noo ballan qaaday in ay dhamaystirto kaarbadkii ay keentay oo runtii yaala kaasna uu dhammaan doono biidnillaah bishan bilaabmi doona dabayaaqada bishan. waxaa isna dhankiisa ka hadlay madaxa qabanqaabada tartanka magaalada Laascaanood ahna madaxa da'yarta gobolka Sool mudane Salbaan Cismaan Cabdinuur Xaashi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inuu isuduwaha cusub ee gobolka Sool si wacan ula shaqeyn doono markastana tartamo kala duwan ay qaban doonaan. tartanka furmay wajigiisa koowaad si qurux badan noogu furmay koobkan qabanqaabadiisii iyo hiddiiladiisii iyo fikirkiisii ana iska anna waxaan markasta u taagnahay wixii voluntary iyo in aan la shaqeeyo maamulka isuduwaha cusub kuwii horena wala shaqeynay isuduwahan cusubna wala shaqeyn doonaa. insha Allah koobkan wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee da'yartan loo qabto wuxuu noqon maayo kii ugu dambeeyay. isuduwaha cusubna insha Allah waxaan rajeynayaa inuu koobkan iyo kuwa ka wacanba noo qabto haddii aan leedno. annaguna waan garab taaganahay haddaan nahay bahda sportska gobolka Sool dhalinyaradana waxaan leeyahay noqon maayo koobkan kii ugu horeeyay uguna dambeeyay. waan ku faraxsanahay in riyadaydii ay maanta ii hirgasho. insha Allah isuduwahan waxaan kula dardaarmayaa inuu da'yarta uu taageero dhiirigeliyo waqtigiisa kulmiyo. insha Allah kala duwanin deegaanka magac iyo sumcad ku leh. sidoo kalena Salbaan Cismaan Cabdinuur Xaashi wuxuu sheegay inuusan ka tirsanayn xiriirka kubadda cagta ee Puntland isagoo ku tilmaamay inaysan kala tashan magacaabista xilkaasi isagoo halkaasi sheegay inuu iska casilay xilka uu hayay xiriirka kubadda cagta ee Puntland aanan ogeyn lagana tashan markii la magacaabayay. waxaan hadda cadeynayaa una sheegayaa saacada laga bilaabo inaan xilkaas ka casilay anoo ku qaban kari waayay maadaama maamulkii uusan joogin gobolka. maanta waxaa farxad noo ah runtii in maalintii koowaad uu isuduwuhu noo yimi maalintii koowaad noo furo koobka Serie B-ga. koobkaas ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro runtii aad u wanaagsan waan ka tilmaami karo Salbaan. waxaan aaminsanahay in ciyaaraha gobolka Sool ay waji cusub aadeen.
maxamuud aadan askar maxamuud guray Somali News TV laascaanood.